dhacaya haddii aan kuu sheego in aysan hayn marnaba dhibaatada ay dad badan lacag u urursan laayeen amba ay u kaydsan laayeen lacag yari amba mishaar yari balse xaqiiqdu midaasi ay ka gedisan tahay waxaa jira dad badan oo bishii ku shaqeeya lacag gaadhaysa $300 sidoo kale waxaa jira dad badan oo bishii ku shaqeeya $3,000 laga yaabee ninka $300 ku shaqeeya inuu dhigto lacag bil kasta halka ninka $3,000 ku shaqeynaya laga yaabo bishu marka ay dhamaato in uusan wax lacag marnaba haysan bedelkeedana uu sugayo bishii kale haddaba waa maxay sirtu ku dhawaad 100 sano ka hor bug loo yaqaano The Richest Man in Babylonia ayaa waxa uu daa ka qaaday xeerarka ugu horeeya uguna adag isla markaasina lagu kaydin karo laguna dhisi karo inta fara badan xeerarkaasi oo ah kuwa nolol dad badan bedeli doona muuqaalkan maanta waxaan kugula wadaagi doonaa xeerka koobaad ee markaasi ku jira kan loo yaqaano The Richest Man in Babylonia haddaba waxay sugaysaa koobkaaga shaqa soo qaado aygu waa Mr. Haybe soo dhawaada saaxiibayaal muuqaalkeena maanta haddaba saaxiibayaal buuggan wuxuu ka hadlayaa nin loo yaqaanay Arkaad oo ahaa ninka ugu taajirsan magaalada loo yaqaano Babylonia haddaba maalmaha ka mid ah ayaa waxa Arkaad u yimaaday niman ka mid ah asxaabtiisa isla magaalada la degan sidoo kalena ay yihiin dadka shaqo wadaaga waxayna u sheegeen oo markaasi ay ka cawdeen in sidiisoo kale ay u shaqeeyaan isla markaasina isku shaqo ay yihiin balse waxaa jira oo markaasi ay ka cabsanayaan sidoo kalena ay ka warwarsan yihiin inay tahay in isagu yahay nin taajir ah balse iyagu ay yihiin dad fuqara ah yacni aan wax lacag haysan saasay tahayna isku shaqo yihiin haddaba Arkaad su'aashay weydiiyeen waxay ahayd maxaa ka naga dhigay inagoo isku shaqo ah in adigu taajir noqoto sidoo kalena anagu aan noqono dad fuqara ama wax lacag aan haysan balse isagu waxa ugu jawaab fudud oo ah in lacagta bishii uu qaato uu isagu bar ka mid ah iska leeyahay yacni cid aanu siinin taas macnaheedu maaha inuu bakhayl yahay ama uu soo xaday lacagtaasi balse waxa weeyaan in lacagta uu isagu iska leeyahay sidoo kalena uu qoondeeyay in uu meel dhigto taasina waxa ay keentay in lacagta uu meesha dhiganaya ama uu kaydsanaya ay noqoto tii uu hodantinimada iyo taajirnimada ku gaari lahaa tusaale kale oo fudud waxaa jiray laba nin oo markaasi saaxiib ahaa sidoo kalena shaqo wadaag ahaa waxaana lagu kala magacaabi jiray midna Xasan midna Cabdi haddaba ninkan Xasan loo yaqaana waxa uu ahaa markaasi nin ku shaqeeya bishii lacag gaadhaysa $500 halka ninka Cabdi loo yaqaanaana bishii uu ku shaqeyn jiray $3,000 haddaba ninkii loo yaqaanay Xasan waxa ku shaqeynaysan soo sheegnay $500 wuxuu dhigan jiray bil kasta $50 oo kamid ah mishaarkiisa lacagtu qaadanayaana waxa weeyaan $500 markuu bil kasta dhigto $50 soo kalena $450 uu kharash gareeyo yacni amba familkaas iyo amba isagoo isku kharash gareeyo asxaabtiisa la raaco oo meelaha shaah iyo hawlahaas laakiin lacagta waxaysa waa maxay waa $50 bedelkayga bishii bil kasta wuxuu haystaa lacag gaadhaysa $600 haddii uu hal sano dhigto $50 halka ninkii Cabdi loo yaqaanay ee qaadanayay $3,000 bil kasta uu markaasi bil kasta raadinayo lacag cusub amaba uu raadinayo bedelka sidoo kale in mishaarka loo kordhiyo waayo markasta uu bil kasta helo lacagta mishaarka ee $3,000 u soo dhacan wax lacag ah ma dhigto wuxuu sameeyaa uu iskaga baashaalaa asxaabtiisa iskaga raaca familka يعني waxyaabaha hawlaha hor yaalo oo dhan ayuu ku qabtaa halkii uu is oran lahaa wax ku qabo oo markasta uu qorsheeyo in uu bishan wax dhigto wuxuu oranayaa marka mishaarka lagu kordhiyo ayaad markaasi wax dhigan doontaa taasina waxay noqonaysaa qaladka ugu weyn ee dad badan ay maanta sameeyaan ugu la yaabka badan marka cilmi nafsiga la eegayana waxa ay tahay dhinaca bini'aadamka in markasta oo qofka bini'aadamka uu koro dakhligiisa iyo markaasi dhaqaalaha isaga soo galaya sidoo kale ay la korayaan kharashaadka isaga ka baxaya يعني waxyaabaha uu baahan yahay ee uu iibsanaya ay la korayaan oo haddii bishii aad hesho lacag gaadhaysa $300 waxa laga yaabaa in aad dareentid inayna lacagtan marnaba kugu filnayn isla markaasina aad u baahan tahay in lacagtan aad qaadanayso lagu kordhiyo waxa laga yaabaa haddii lagu kordhiyo tusaale $600 lagaaga dhigo in bisha dambe haddana amba dhowr bilood kadib aad dareento inay lacagtan marnaba kugu filnayn taas macnaheedu waxay tahay markasta oo dakhliga ku soo galaya uu bato waxa badanaya markaasi kharashaadka adiga ka baxaya sababtuna waxay tahay in naftaadu la qabsanayso heerarka kala duwan ee nolosha aad ka gaarayso taasina ay keenayso in markasta oo aad kor u kacdo waxyaabihii kugu hareeraysanaa iyaguna soo kale ay noqdaan waxyaabo aad u qaali ah ama iyaguna markaasi kugu qaali garoobaya taasina waa sababta dad badan mishaarka ay qaataan uu markasta uga dhamaado ama markaasi ay wax uga dhigan waayaan yacni kayd iyo dhaqaale ay hadhow dib u adeegsadaan qodobkan waxa uu inoo sheegayaa soo kalena uu inoo cadaynayaa in markasta oo aad markaasi lacag aad hayso aanad marnaba ka fikirin lacagtaasi inta ay ku kordhayso amba ay ku badanayso bedelkayga aad mar walba lacagtaad haysato inta badan aad dhigato wixii soo harana aad isticmaasho sidoo kalena aanad sugin inta ganacsi ama markaasi mishaarka lagu kordhinayo ama markaasi lacag fara badan aad helayso waxa lagaaga baahan yahay in aad bilowdo maanta isla maanta inaad bilowdo
muhiimaddu waa inaad bilowdo lacagtu hadday doonto ha noqoto 5% ama 10%. haddaba haddii aad muuqaalkan cashar ka baranayso ha noqdo midkan. dadka taajiriinta ah mar walba waxa ay isticmaalaan lacagta iyaga u soo hadha balse ma adeegsadaan lacagta bilowga hore halkii markaasi dakhliga soo gala uu ka burburi lahaa. waxaana lagaaga baahan yahay mar kasta oo aad lacag adeegsanayso in ay noqoto lacagtaad adeegsanaysaa kharashkaadii oo ku soo hadha ee uusan noqon percentage-ka marka hore aad hesho. sidoo kalena waa inaad isweydiisaa su'aashan: haddii maanta aad mishaar haysato lacag maxay kula tahay lacag intee leeg ayaad kaydsan kartaa amaba markaasi dakhli intee leeg ayaa kaa go'a si aad u kaydsato. waxaan rajeynaya inaad muuqaalka wax badan ka faa'iideeyey.